iyadoo wali lagu guda jiro qaadashada kaarka codbixinta ee ka socota gobolka Awdal ayaa maanta mar kale wafdi ballaaran uu hogaaminayo murashaxa madaxweyne ku-xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo ay kamid ahaayeen siyaasi Axmed Muumin Saad iyo mas'uuliyiin kale ayaa waxay soo kormeereen oo ay kamid ahaayeen degmada Dila iyo walibana sidoo kale deegaanada hoos yimaada sida uga socoto kaar qaadashadu markii ay soo dhameeyeen kormeerkoodaasi oo warfidiyeenada la hadleen ayaa waxay yiraahdeen musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani Dr. Maxamed Ali oo anaguna runtii ahayn waftiga muxuu ahaan wada soconay waxaanu soo gaarnay goobtii kaar qaadashada ee magaalada Dila runtii waxaanu mahad celinayaa marka hore dhalinyarta sida aadka u wanaagsan runtii wacyigelin badan siinaya bulshada deegaanka Dila ilaa iyo Bakiba oo runtii isxilqaamay oo hadalkaysaan baabuur iyo mikrofoono iyo wacyigelin ilaa saakab ka socotay deegaankan Dila oo dhalinyartu ay runtii tawfiiq ay aad iyo aad isku abaabuleen dhalinyartu waan mahad celinayaa waa maalintii lixaad waxaan maanta ku jirnaa haddana waxaad arkaysaa goobihii ilaa shalay cunaqabad iyo deegaanka aniga iyo musharax madaxweyne ku-xigeenka aanu maraynay ilaa imika wali wacyigelintu meelaha qaarkood aad bay u hooseysaa qaadashada kaarka waxaad moodaa inay waxoogaa muxuu ahaay hooseyso sababtoo ah 4 maalmood waa maanta lixaad baan maanta maraynaa 4 maalmood oo 6 maalmood ka mid ahaa dadku runtii iyagoo ogeyn baa iyo kaar qaadashadu bilaabantay markaas 3 maalmood ilaa 4 maalmood runtii waxaan u malaynayaa inayna cid gaar qaadan laakiin shalay oo ay bishu ahayd maalintii shanaad ahayd iyo maanta aynu marayna maalintii lixaad waxaad moodaa hididiilo badan inay jirto ay dadku abaabul badan sameeyeen kaararka ay reer Awdal la keenay runtii waa kaarar aad u badan waa ilaa 170,000 oo kaar weey 170,000 kaar goobaha laga codeynaya ee Awdal gobolka Awdal dhamaantiina waxa weeye waa 35 goobood marka la eego goobaha iyo tirada kaararka yaala aad bay u kala badan yihiin waqtiga marka la eegana 10 maalmood oo 4 cisho ka go'dayna 6 maalmood bay ku soo ururaysaa halka waxaanu leenahay waxaan ka codsanaynaa komishiga doorashooyinka qaranka halka in hoos loo eego oo muxuu ahaay arintaas oo hoostan ka xariiqaya in halka hoos loo eego haddii ay gastashan suuragal tahay in arinta gobolka Awdal runtii aad muxuu ahaay hoos loogu eego maadaama aan nasiib u helnay goboladii ugu horeeyay sababtoo ah gobolada aan ilaa imka kaarka aan la tagin waxay og yihiin maanta la imanayo oo si diyaar garoobeen laakiin gobolka Awdal iyo Saaxil iyo Ceergabo waa meelo ugu horeeyay degmooyinkii goboladii ugu horeeyay baa ahaayeen taasina runtii waa arin iyada lafteedu dibteeda iskala weeyay marka runtii maalintii maadaama aan ku maalintii lixaad ku jirno waxaan ku boorinayaa dhammaan shacbi weynaha reer Awdal oo gobolkii aniga madaxweyne ku-xigeenka ku suganahay inay kaarka qaataan waliba kaarka markay qaataan inuu shakhsi kasta waxaan ku dardaarayaa kaarka markaad qaataan inaad kaarka inagu gacanta ku haysataan waxyaabo badan baa soo baxaya shakhsi kasta waxaan ku boorinayaa kaarka markaad gacanta ku dhigto kaarkaagu waa shay ka mid ah noloshaada waa shaygii aad bari ka maalin isbedel ku codeyn lahayd waa shay adiga muxuu ahay noloshaada ka mid ah kaarka codbixintu waa inaad markaa adigu gacantaada ku haysataa oo inaad qof kale iskaga dhiibin oo kaliya uu ku koobnaado kaarkaagu cid kasta taasaanu ayaan ku dardaarinaa maanta waa maalintii lixaad ee 10 maalmood ee loogu talagalay 3 gobol Awdal Saaxil iyo Sanaag in kaarkii lagu qaato sida wasiirku uu sheegay 3 maalmood ee hore wacyigelin la'aan iyo waxay ku dhaaftay dadka iyo dadkoon u diyaar garoobin sida ay ku socoto goobtan waxaanu soo marnay waa goobtii Dilaad halkan joognaa jimcihii baanu soo marnay cidima joogin taas waxa ku soo maalintii saddexaad baa maalinta jimcuhuna inaan dadku maqal maanta laakiin alxamdulillah dad badan baa jooga marka hore komishanka waxaanu ka codsanaynaa 2 arrimood in gacanta la fududeeyo oo dadka hawsha ku jira ee goobaha jooga ee kaarka siinaya dadka inay hawsha fududeeyaan sababtoo ah dadkii 10 maalmood qaadan lahaa waxay iskugu soo urureen 6 maalmood imiga ama 5 maalmoodba taa waxaanu leenahay ha loo fududeeyo dad baa soo baxay shalay iyo maanta waxa ama qaleed dad kaarar la leeyahay iyagana komishanka waxaan leenahay in la fududeeyo oo dadka warqad ay ku hadhow kaarkooga lagu heli karo
oo loo dooni karo commission ku keeni karo oo goobtii la keeni karo maalinta la codeynayo intaana lagu dadaalo commission ku dadaalaan waanu kala hadalnayna ta kale sida muuqata maadaama ay 5 maalmood iskugu soo ururtay 10kii maalmood ay wacyigelin la'aan ku dhacday oo ay gobolada 3 gobol ee dambeeya ka nasiib badan yihiin kuwa hore oo ay dadkii diyaar garoobeen wax walba oo suurtagal ah in la sameeyo qasab maaha wax maaha in 10 maalmood lagu koobo haddii ay muuqato in dadkii aanay wada qaadan karaynin sababtoo muddada oo cidhiidhi noqotay oo wacyigelin la'aan ahayd dee in lagu daro maalmo 2-3 maalmood in lagu daraa culays kale ay keenaysa ma aragno waana la adkeysan karaa commissionkana taana waanu ka codsananaa dadweynaha gobolka Awdal iyo labada gobol ee kala saaxil iyo Sanaagba waqtigu waa dhow yahay 4 maalmood waxaan ku boorinanaa oo ku wacniyeynaa oo ku waaninanaa inay kaarka qaataan waa xaq qofku leeyahay dadweynaha ilaahay waxaan ka baryanaa si nabadgelyo inoogu bilaabantay nabadgelyo ku socotaa nabadgelyo inoogu dhamaato in ilaahay inoo sakhiro dadkana waxa leenahay hal adkaysto haloo dul qaato halna dadaalo kaarkana hal qaato waa Shucayb Maxamed kaan Shucayb Bigays